الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة. نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة. سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة، خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة، سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة، خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة. فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة، فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة، فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلان وعن أو نكسن دقيستيال ميل والبا oo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka Andalus Podcast. Xalqadan waxay ku soo aaday iyadoo maanta loo dabaaldegayo waxa lagu yiro maalinta ay xornimada qaadatay Soomaaliya, gaar ahaan markii ay madaxbanaanidii maqaarsaarka ahayd ay qaateen goboladii waqooyi ee Soomaaliya. Maalmo kadibna waxaa nagu soo aadan markii ay koonfurtu heshay xorriyad ku sheega ay Soomaalidu u dabaaldegto sanad waliba ilaa la soo gaaray sanadkan oo laga joogo 65 sano. sidaas darteed arintaas waxay nagu riixaysaa inaan maanta xalqadan ku falanqeyno mowduucaas oo aan isweydiino Soomaaliya muxorba madaxbanaanidii la qaatay 60kii ma dhab ay ahayd mise dhalanteed. waxaa barnaamijka marti iigu ah oo igala qayb gali doona barnaamijka ninkii yiri wali lama xoroobine adaan dhuuxin xaajaduye xudur buu gumaystuhu qabsaday xalay tofiidkiye. waa abwaan Nageeye Cali Khaliif wuxuu ka mid yahay dadka qabadooda ah inaan wali la xoroobin, sidaba uu dhowr jeer ka cadiyay goobo kala duwan gabayo qormooyin iyo fagaara ka hadal kala duwanna uu ka jeediyay. waxaan kala niqaashi doonaa waxa uu u cuskanayo doodiisa, cadeymaha uu nagu qancin karo ee muujinaya inaan dalkan wali la xoreynin. balse mowduucan intaan u guda galin, abwaan marka hore ku soo dhawow stuudiyaha labaad ee idaacadda Islaamiga Andalus, gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhawow marka hore. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر الأمر. آدي aad baad u mahadsantahay walaal, waana dhowah. Su'aasha aan rabo inaan barnaamijka ku dahfuro waxay tahay Soomaaliya muxorba. waa mahadsantahay walaal, waa dhowah. waana idinka mahad celinaya runtii barnaamijkan qiimaha leh ee runtii taariikhda Soomaalida ina lagaga hadlayo, dadka runtii xogogaalka ahna lagu casuumo. waa dhageystay barnaamijyadii hore runtii aa samayseen, barnaamij runtii xog kordhinaya, macluumaad kordhinaya, dad odayaal ah runtii inay hadlaan ay muhiim ahayd, rugcada aad iyo aad runtii waa ku marti qaadeen. anigu waa ka cudur daaranayaa taariikhda weyn ee runtii la doonayay maanta in laga hadla inaanan ehel u ahay, laakiin haddana waa ku qasbanahay inaan wixii suurtagal ah ee aan awoodaan ka idhaah. su-aashaas walaal saan ugu soo laabano, waxa muhiim waxa weeye horta taariikhda waxa la yiraahdo. waxa yiraahdaa taariikhdu waxa weeyaan waa in la fahmo, ama waa faham, ama waa barashada, ama waa gorfaynta. dadku ay gorfeeyaan ama ay fahmaan waxyaabihii la soo maray. waxyaabahaas waxay noqon karaan taariikhda qoran, waxay noqon karaan waxay yiraahdaan taariikh afeed. sida inagoo kale dadka gabiyo oo kale, gabayga oo kale wuxuu ka mid yahay taariikh afeed buu ayuu ka mid yahay. marka walaal, taariikhdu si guud waxay dadka ka caawin kartaa inay fahmaan, ay faham wanaagsan ka qaataan ahaanshiyahooda. waxay ka caawin kartaa inay fahmaan diintooda, inay fahmaan dhaqankooda, inay fahmaan siyaasadooda, inay fahmaan jiritaankooda. waana waxyaabaha runtii barnaamijkan iyo kuwa la midka ah ay muhiimka u yihiin. marka bulshadu haddii aanay taariikhdeeda aqoonin, waxaa laga yaabaa inay ku dhacdo qalad ay hore ugu dhacday, oo qaladaad hore fara badan oo ay ku soo dhacday haddana mar labaad ku laabato. laakiin haddii bulshadu taariikhdeeda barato, waxaa laga yaabaa inay mustaqbalka uga shidaal qaataan oo qaladaadkii hore loogu dhacay aanay ku dhicin, dib ugu noqon. Soomaalida markaynu soo laaban, qofka Soomaaliga waxay yiraahdaan dadka taariikhdooda wuxuu ka qorqoray. waxay yiraahdaan dadka Soomaalida ah waxay caan ku yihiin horta waa dad xoolo dhaqata. xoolo dhaqatanimaduna halkan runtii muhiimad gaar ah bay leedahay. qofka xoolo dhaqatada waxaa suurtagal ah inuu meeshu cabsi ku dareemo, uu ka guuro oo meel kale u guuro. dadka beeraleyda inta badan taas
taasi suurtagal uma Soomaalidu ma xoolo dhaqataa mise waa xoolo raacata iyada lafteedu dood kale weeye Faysalo xoolo dhaqato waxaa laga yaabaa nin jooga Holland jooga oo 1 sac leh ama 2 sac leh oo haddana caana dhoofiya in la arko laakiin Soomaaliya la arkay nin 300 halaad leh oo haddana kabalo oo baahan in la arko marka ma xoolo dhaqataynu nahay mise xoolo raacatayno xoolaha waynu iska daba soconaa uno iyada lafteedu waa dood laakiin si guud waxaan dhihi karnaa Soomaaliya waa xoolo dhaqato waa xoolo raacato kolba kii lagu macneeyo waxyaaba kale Soomaaliya sheegay waxa kamid Soomaaliya dad xorriyadda jecel bay yiraahdaan dad qof xornimada jecel weey qofka madax banaan haysto waa dad waxay yiraahdaan geesimo dheeraada leh dadka Soomaaliya waxay yiraahdaan waa dad adkaysi leh waxyaabahaas oo dhan dadkii Soomaalida la dagaalamay ee gumaystaha ee yimid qofka Soomaaliga waxyaabihii runtii ay ku qeexeen waxyaaba ay sheegaan waxa kamid dadka Soomaalida waxay leeyihiin nidaam kala sarreeyna kama jiro hierarchy ma laha xoogaa qaar boqortooya qaar waxaas ma laha laakiin si guud hadana dadkooda waa yeelka iyo dadkaasuba inta badan tala qabeen oo ahaan jiray laakiin nidaam kala sarreeyna inta badan dhaqanka Soomaalida kuma jira bay yiraahdaan dad siman oo si siman u wada dhaqma waa da'da iyo garaadka la isku albis ayuunba lagu kala weeyay waxyaaba kale sheegan waxa kamid ah qofka Soomaaliga qof cara badan waa oo inta badan duqlaqta qofka Soomaaliga macaanaha geelay cabaan hilibka geelay cunaan waxyaaba kale oo iska funny story la sheega way jiraan laakiin qofka Soomaaliga waxa yiraahdaa waa cara badan yahay uu dagaal jecel yahay laakiin haddana uu geesinimo badan yahay oo waa qof dagaalami karo iska dhicin karo way waxyaabahaas walaal kamid ah waxay yiraahdaan qofka Soomaaliga wuxuu ku soo urursan waa qof anafale oo sidoo kale qof deeqsiya oo wax bixiya oo wax hora ayay yiraahdeen dadka dhul mareenada ah ee dhulka Soomaalida maray ayay Soomaaliga qof deeqsiyo oo wax bixin karo dadka martigeliya ayay ku sheegeen Soomaalidu siday sheegaan inaguna aan ognahay waa dad muslimiin oo sunni ah waa dad isku qoomiyad ah oo hal qoomiyad oo Soomaali la yiraahdo ka soo wada jeedo ku abtirsada bulsho ahaan waa dad afka wadaaga waa dad midabka wadaaga isu eeg si guud Soomaalidu waa dad maxaa la yiraahdaa deegaankooda deegaan isku mid ah inaga dhulkeena buurama kala xidhaan webiyaal waaweyn oo la isaga gudbi karin inama qaybiyaan bado inama kala xidhaan halkan aad ka tagay meesha Soomaaliya ugu dambaysa oo iska lugaynayo geelaaga wata laga yaabaa inaad tagto qaab nololeedkeenu wadaagna dadka Soomaaliyeed dad qaab nololeedka wadaaga waxa laga yaabaa guri kasto Soomaaliyeed saaka in canjeera lagaga quraacday marka qaab nololeed bay sheegaysaa macnaha inay isu eegyihiin oo dadkani ay maaragtay wax wada leeyihiin arrimahaasi waxay yiraahdaan marka Afrika inteeda badan suurtagal kama ah dawladaha Afrika qaab dad isku diina isku dhaqana isku afa waxaan oo dhan wadaaga wax badan ka midaysan waxaynu degannahay dhul runtii muhiima strategically meel muhiima bay Soomaalidu degan yihiin waxay degan yihiin cirifka bari waqooyi bari waliba qaaradda Afrika meesha geeska u eeg macnaha bay yiraahdaan bay degan yihiin dhulkeenu badweynta Hindiya iyo gacanka cadmeed harada Taana ilaa webiga Hawaash Soomaalida dhulka sida runtii baaxadda u leh ay walaala degan yihiin waxay yiraahdaan wadarta guud ee dhulka Soomaalidu waa 1.5 milyan kilometer square 1.5 million kilometer square dawlad dunida ku nool oo ka maarmi karta dhul baaxadda leh ma jiraba oo badle oo webile oo hawad diyaaradda dunida xagga socda xagga kale waxay ku qasbantay inay dhulkaaga dul marto waxay ku qasbantay inay badahaaga isticmaasho waxay ku qasbantay kheyraad macnaha waa dhul muhiim ah ballaaran istiraatiijina ah waxay yiraahdaan jasiiradda Soqodar ee hadda ka tirsan dalka Yemen iyada lafteedu waxay raaciyaan inay dhulweynaha Soomaaliyeed ay ka mid tahay waxa dadku inta badan la maqlaa inay xeebta Soomaalidu tahay xeebtan Afrika ugu dheer waxyaabahaas oo dhan waxyaabo muujinaya meeshan degannahay inay u baahan tahay maaragtay weey xasaasiyadeeda ay leedahay dadkii Soomaalida maaragtay hore ee si uu daraasay ama Greegii hore ama Romaaniyiintii hore magacyaday si uu qoraan Soomaaliya waxay dhahaan dad barbariska dad la yiraahdo Soomaaliya magacooda hore waxay dhahaan barbaris la dhihi jiro dadka qaarkood baa waxay rumaysan magaaladan Berbera magaceedu meeluhu ka yimid ba inay halka ahayd oo magaalada Berbera barbarkii maaragtay inay tahay buuga caanka ah Fatuhul Habash oo kale oo 540aadkii kontonaadkii meelaha yiraahdaan waa la qoray dee magacyada qabiilo Soomaaliyeed oo dagaalka ka qayb galay Axmed Gurey Hiilu ahaayo dagaalamayay ayaa ku jira ayaa ku xusan marka niyo arrimahaasi marka la isu wada geeyo waxay leeyihiin su'aalahan oo kale deegaanka oo kale Soomaalidu sina soo sheegnay dhulkooda waxa nibaa ma jiro marka wax xoolo dhaqato halkan uu ka guuraya halkan kale uu tagaya qofka Soomaaliga xuduudkiisa waxay leedahay waa halka hashiisu daaqdo halkaas baa xuduud u ah meesha hashiisu daaqdo waa xuduudkiisa waa mana dad furan oo socdo oo weeyaan ay sheegaan dhinaca magaalooyinka waxay leedahay Zeylac oo kale ama Muqdisho oo kale Xamar ama Berbera ama Herar Xaafuun Boosaaso Gandarshe Marka magaalooyinkaas waxa laga yaabaa bay leeyihiin inay 2,000 sanadood waqti ka badan qadiimi ah ay jireen marka horta niyo dadka iyo dhulkaas ayaynu ka hadlaynaa waa gartay Soomaalidu xaaladda ay ku sugnayd xilligii gumeysiga lagu jiray
habnololeedkooda sida uu ahaa gumeystaha markii uu imaanayay wadanka xaalka sida uu ahaa bal suurad kooban dhegeystayaasha hal markasi way gumeystaha ka hor dowladaha waaweyn ee reer galbeedku way isbedbedelaan oo kulaba mid baa awoodaysata taasaana faragelinta ugu badan la samaysa xilligii gumeystaha hadda aan ka hadlaynay dambe Yurub ka horeeyay ama ka qaybsiga Yurub ka horeeyay dowlad weyn oo Boortaqiiska la yiraahdo baa jiri jirtay oo taariikhda dunida ku jirta Boortaqiisku faragelin badan ayuu Geeska Afrika iyo meeshan deganahay oo runtii ku lahaa 1499 Boortaqiisku intuu magaalada Xamar soo weeraray ayuu isku dayay inuu qabsado kuma guuleysanin laakiin maartay weerar buu ku qaaday magaalada Xamar waxaan 1500 markii la marayay Boortaqiisku wuxuu weeraray oo waliba bilal qaystay bay dhahaan iyaga qoraayay macnaha sidaas magaalada Baraawe maxaa la yiraahdaa duulaankaas markii dambe wuu ku jabay oo maartay kuma guuleysanin dhimasho badan baa loo geystay askar badan baa laga leeyahay isaguna dadkii Soomaalida ahaa ee masaakiinta ahaa oo ka hubka badnaa dabcan dhibaato badan buu ayuu gaarsiisay fahmi karo 1512 Boortaqiisku haddana wuxuu weeraray magaalada Zaylac wuu ku jabay bay yiraahdaan lafteeda laakiin isaguna dhibaato badan buu ka geystay 1518 meelahaas Boortaqiisku magaalada Berbera weeraro wuu gubay bay yiraahdaan markuu qabsan kari waayay waxaan wuu gubay Berbera sanadadii kuwa ku xiga waxa la xusuustaa halgankii uu galay Imaam Axmed Gurey 1520 ilaa 40 oo dagaalku Xabashida iyo ku qaaday markii ugu dambeysayna maxaa Imaam Axmed Gurey 1543 waxay yiraahdaan February 22 bay ahayd ciidamada Boortaqiiska markii dambe ayaa dilay imaamka waxa soo markaa waxay ku sheegayaan gumeystaan hadda aan ka hadlayna ka hor in mar walba dhulka Soomaalidu uu ahaa dhul duulaan ku socdo oo quwado hab kolba markaas iyagu isbidaya ay duulaan ku yihiin quwadaas waxay ku lamaanayaan mar walba dawladda Xabashida oo ay isbahaysi ama diineed ha ahaato ama mid geograafiyeed ha ahaato ama siyaasadeed ha ahaato ay kala dhaxeeyeen dadka Soomaalida ah waa dad muslimiin mandiqada makaniyaan ay isku dayayaan ay doonayaan marka dadka Soomaalida waa dad muslima oo inta badan maaragtay si uun ummadda muslimiinta ay Carabeed ee dariska ay yihiin ugu xidhnayd Xabashaduna waxay taageeradan ugu badan ka helayeen kolba quwadda marka iyadu xisbidaysa ee Masiixiyiinta maaragtay Yurubiyaanka oo marka loolanka inaga iyo Xabashada inoo dhaxeeyba marar badan ama inta badan qaabeyn jirayba siyaasadda gobolka Geeska Afrika loolanku mar mid diineed buu ahaa kan ugu xoog badan mar kalena wuxuu ahaa mid dhul la isku haysto marka saddexaadna wuxuu ahaa mid awoodiyo isu awood sheegasho iyo xukun la isku hay Xabashada marka iyada wakiil uga ahayd maxaa la yiraahdaa Masiixiyiinta ama Kristanka iyada wakiil uga ahayd gobolka Geeska Afrika calanka kufriga iyada sidee baa la dhihi karaa dadka muslimiintina dad muslima oo Soomaaliya oo calanka tawxiidka sida oo Geeska Afrika jooga bay haayeen colaadda ugu badan walaal halkaas ay salka ku lahayd dawladihii ugu badnaayeen Xabashida ama taageero muuqato hub ama ciidan ama farsamo ama siyaasad siin jiray waxa ugu muhiimsanaa Boortaqiisku waa si markuu isagu dunida ku calan waleynay Faransiiska waa si Ingiriisku waa si maanta Mareykanku wuu siinaya Britolana dawladda kale Masiixiga ah ee hoggaanka qabata way siin doontaa marka sidaasay horta soo ahayd waxaad xusuusataa Herar oo caasimadda muslimiinta ahayd boqorkii Xabashida boqor Milalek 1887 meelahaas ayuu qabsaday waxa la yiraahdaa masaajidkii magaalada Minaaradeeda intuu ku istaagay uu ku kaajay dabadna wuxuu yiri maartay aniga gadaashay lagu tukan maayo run bay noqotay oo maalinta kadib laguma tukanin ciidamadii sidaas sameynayay Talyaani iyo waxba caawinayay oo hubka iyo farsamada iyo maartay waxa siinay kan loolankaas walaal ayaa soo jiray markii dambana isbahaysiga caalamiga ay maxaa la yiraahdaa Masiixiga iyo loolankiisu sidaas ayuu u soo socday marka gumeystihii reer Yurub markii dambe dhulka qaybiyay ka hor Soomaalidu xaalad saa ay ku sugnay waa gartay aan u imaano marka qarnigii 19aad gumeystaha ugu dambeyntii sidee buu ku yimid dalka wadankan uu ku kala qaybiyay si gaar ah gumeysigii bilowday qarnigii 19aad reer Yurub intaanay Afrika qaybsanin waxay gumeysan jireen qaaradan hadda Mareykanka la yiraahdo 300 sanadood bay gumeysi ku haysteen inaga qaaradda Afrika marka ay qaybsanayaan waa 1984 bay ay qaybsanayaan Berlin ku aadan waxay sameeyeen marka shirkaas waxaa lagula wareegay mulkiyadii dhulka waxaa lagula wareegay mulkiyadii awoodda wax walba waa lagula wareegay reer Yurub intaanay shirkan qabanin ka hor joogitaan muuqday ku lahaayeen Afrika dhammaanteed inteeda badan joogitaan muuqday ku lahaayeen way joogeen khayraadkay ka qaadan jireen warshadahooda soo korayaabay wax uga guran jireen laakiin markii dambe xoogaa waxay isdheheen maaragtay inay isku dhacaan ay iyaga laftooda ka cabsadeen oo ay meelaha qaarkood ay isku jeedaan dawladii xilligaa boobka hogaaminayay waa Ingiriiska waa Faransiiska waa Boortaqiiska waa Jarmalka waa Belgium dawladahaas marka si ay maartay uga hortagaan isku dhac dhexdooda
ayay waxay ku baaqeen in shir Berlin ay isugu yimaadaan. Shirku wuxuu furmay way yiraahdaan November 15 1884. Marka waxa ugu weyn ee laga wada hadlayay wuxuu ahaa sidii Afrika loo qaybsan lahaa. Chancellorkii Jarmalka ayaa shirka martigeliyay furayna meel ay yiraahdaan William Street oo magaalada Berlin ee caasimadda u ah ku taala. Ayuu shirku ka furmay ilaa iyo February 26keedii 1885 walaal shirku wuu socday. ajendaa shirka ugu weyn inuu sheegnay wuxuu ahaa Afrika aan qaybsan inaguna aan kala nabad gal. Afrikada la qaybsanayay inagu dabcan ka mid nahay ma ogtahay. marka Soomaaliya kale Faransiisku markii shirku dhamaaday dalal badan oo Afrika isaga iyo Ingiriiska ugu badnaa oo wax qaybsaday. Ingiriisku Faransiisku wuxuu qabsaday Senegal oo ay oran jireen waxa la dhihi jiray French West Africa ayay isaga qabsaday. Burkina Faso waxa la yiraahdaa Mauritania. dawladahan ay u bixiyeen Federation of French Equatorial Africa waa dawladahan hadda Gabon iyo waxa la Jamhuuriyadda Congo iyo Chad iyo Central African Republic iyo dawladaha isaga qabsaday. French East Africa Djibouti isaga qabsaday. French Guinea isaga qabsaday. Cote d'Ivoire waxa isaga qabsaday. Ivory Coast Benin buu qabsaday. Niger buu qabsaday. Tunisia buu qabsaday. Algeria buu qabsaday. Morocco qabsaday. inahaas waxay noqdeen dawladihii ku aaday iyo waqooyi dawladihii isaga ku aaday bay noqdeen. Ingiriiska oo geeska Afrika intiisa badan loo oran karo isagu ku soo aaday marka Djibouti laga reebo iyo Eritrea iyo dabcan Soomaaliya meelahaas wuxuu qabsaday South Africa isaga qabsaday. Ingiriisku macnaha meelaha qaybta ku helay kamid ahayd Zimbabwe isaga qabsaday. Botswana wuxuu kaloo qabsaday Kenya oo British East Africa ay u bixiyeen. waxay qabsadeen dalka Northern Rhodesia ay dhihi jireen oo hadda dalkan waxa la yiraahdaa Zambia la yiraahdo. Malawi bay qabsadeen. waxay qabsadeen Nigeria. waxay qabsadeen Gold Coast dalka ay dhihi jireen oo waa Ghana way ay qabsadeen. waxay qabsadeen Suudaan iyo Masar. waxay qabsadeen Soomaalida dhulkeeda waqooyiga Soomaaliya ay qabsadeen. intaas Somaliland bay u bixiyeen. intaas isagana ayaa ku aaday Portugiiska. xilligan waxa ku aaday dawlado kooban oo dalkan Mozambique iyo Angola iyo waxa la yiraahdaa Guinea Bissau iyo dalalkaas ayuu isaguna qabsaday. xilligu calankiisu sii dhacay Ingiriisku la wareegay ayay ahayd. Jarmalka dawlado kooban baa isna ku aaday. waxa kamid ah dalka Namibia hadda ay dhahaan. waxa kamid ah Tanzania, Rwanda, Burundi gan ku hadal ciidamadooda inay la joogaan, Cameroon, Togo dawladahaas iyagana waxa gumeystay Jarmalka. meelo kooban oo Belgiumku ay heleen baa iyaga laftoodu jiray aan badnay. waxa kamid ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo meelaha hadda ay dagaalada ugu badan ay ka dhacaan. Talyaanigu wuxuu helay isaguna Soomaaliya waqooyi maxaa la yiraahdaa koonfurta ayuu helay. wuxuu kaloo isna qayb u helay Eritrea. wuxuu helay Libya. saddex dawlad baa isagana ku aaday. Isbaanishka waxa ku aaday dawladda ay yiraahdaan Equatorial Guinea. marka qaybsigii sidaa u dhacay ayuu horta Soomaalidu ka mid ahayd. marka dhulkii Soomaalida waxaad u jeedaa qayb ka mid ah. Kenya Ingiriis baa qabsay. saas daraadeed dhul Soomaaliyeed oo xaggaas ku yaala Ingiriis baa qaatay. Somaliland Ingiriis baa qaatay. Djibouti Faransiis baa qaatay. Talyaaniga wuxuu qaatay Xamar. maxaa la yiraahdaa gobolkan hadda Soomaali galbeed meelo dhaxu ka baxay markii dambe isagana si loo dhiibay xabashada lagu raali galiyay. marka waxaad u jeedaa wala horta Soomaalida qaybsigii Yurub saas ay u saameeyay. wax kaloo saameynta lahaa waxa kaloo iyaguna saameynta lahaa dhulka Soomaalidu dhulaan xilligan nidaam maamul oo midaysan oo dawladeed oo difaaca uu ka jiro ma ahayn. beela Soomaaliyeed iska madax banaan xoolahooda dhaqada maxaa la yiraahdaa ayay ahaayeen. taas markaa waxay fududeysay inuu qaybsigii uu u fududaado oo damci reer galbeedku uu si fudud uu uga hirgalo. waxay yiraahdaan markaa gumaysigaas Afrika qabsaday. Afrika oo dhan wuu saameeyay laakiin meelaha sida ugu xun uu u saameeyay dhulka Soomaalida kamid ah. waxay yiraahdaan buugaagta taariikhda waxay sheegaan meesha ugu xun ee gumaysto Afrika uu saameeyay waxay Soomaalida. waxay yiraahdaan may jirin ummad loo qaybiyay 5 meelood marka Soomaalida laga tago. Masaayidan bay sheegaan Kenya degan meelaha East Africa 3 meelood meelahaas loo qaybiyay. laakiin Soomaalida 5 meelood loo qaybiyay. saas daraadeed meesha ugu xun ee gumaystuhu uu saameeyay Soomaalida dhulkeeda. kala qoqobka marka diiradda saaray macnaha meesha ugu badan oo ka dhacay dhulkeeda. su'aalaha kale Ingiriiska waxay ujeedooyinku lahaa. Ingiriisku cadan buu deganaa oo marka dalka Yemen dal muhiim ah uu runtii ahaa. marka ciidamadii Yemen ee deganaa meesha la yiraahdo Yemen ayuu Ingiriisku doonayay inuu xoolo iyo hilib iyo wax waqooyiga uga helo. dabcan de marinka muhiimkaana uu ilaashado. marka dantu Ingiriisku waqooyiga u doorbidayay waxay yiraahdaan Berbera iyo Cadan iyo Hindiya inta inuu isagu isku qabsado ayuu doorbidayay. Faransiisku tartan buu kula jiray si guud maxaa la yiraahdaa Ingiriiska. marka wuxuu doonayay inuu isaguna qayb intuu helo dabadeedna dekada Djibouti dhiso meesha dhaqaale ka sameeyo kadibna uu kula loolamo hegemonigiisa ama jiritaankiisa dawladeed uu kula loolamo maxaa la yiraahdaa Ingiriiska. Talyaanigu
beeraha Soomaaliya iyo dhulkan webiyada leh ee barwaaqada inuu wax ka beerto plantations iyo maartay beero waaweyn ka sameeyo dhaqaale ka sameeyo markii dambana dawaad ogeyd Shabeellaha hoose iyo Jubbooyinka iyo dhulkaas inuu maartay beero waaweyn oo Talyaanigu uu ka samaystay oo dhulkaas uu qabsaday waxa xiisa leh xabashidu hal ujeedo ayay kala hayeen dhulka Soomaalida inay qayb ka yeesho bas ujeedo gumaysi in Soomaalida qabsato ila wareegto intaasay ujeedadoodu iyagana ahayd bay yiraahdaan waa gartay qaybsigaas kadib sidaad og tahayba halgan gobonnimo doona ayaa bilowday Soomaaliya oo kaliya maana Afrika oo idil ayuu ka bilowday si gaar ah wadamadii muslimiinta ahaa halgan gobonnimo doona ayaa ka bilowday Liibiya oo kale Umar Mukhtaar ayaa ka soo baxay Soomaaliya sayidka ka soo baxay iyo halgamayaal kale Soomaalida sidee bay isaga caabisay gumeystihii iyaga ku soo aaday oo Talyaani iyo Ingiriis iyo Faransiis balaha 1884 buu Ingiriisku markaas si guud dhinaca waqooyiga xoogaa uu maartay joogitaan muuqda ku yeeshay odayaashii meelahaas joogay ibaa maartay heshiisiyo qaarkood la samaystay kadibna saasoo maxaa la yiraahdaa British Protectorate ayuu u bixiyay sidaas ayuu ku hirgalay horta gumeysigaas qaybtaas Talyaaniga waxay yiraahdaan joogitaankii ugu horeeyay Talyaaniga koonfurta 1885 markab calanka Talyaanigu ka taagan yahay oo magaalada Cadale waqooyiga xamar yimid ayaa joogitaan muuqda oo la garanayo ugu horeeyay bay ay dhahaan shaqaale Talyaani ah saarnaayo calanka Talyaaniga ka taageen baa la dhimaartay Cadale waa la dagaalamay dadkii Soomaalida ahaa dhowr qof bay ka dileen markabkina meeshii uu ka tagay taas waxay keentay markaa Talyaanigu inuu Cadale uu ka guuro oo maartay uu joogi kari waayo 780 marka la maraayo Talyaanigu haddana wuxuu maartay boqorkii xabashada saynu soo sheegnay wuxuu ka caawiyay barto inuu heer qabsado hub iyo wuxuu siiyo iyaga laftooda isku xidhnaantooda macnaha dareemaysa ujeedada gumaysiga say isugu xidhan yihiin Milik wuxuu isku dayay inuu weeraro Zaylac wuu weeraray Zaylac buu weeraray dadkii Soomaalida halkaa joogay way iska difaaceen waxyaabaha cajiibka waxa kamid ah marka herar iyo Zaylac labaduba waxay kamid ahaayeen dhulkii loo bixiyay British Protectorate si guud la aaminsanaa inuu Ingiriisku ilaalin doono Ingiriisku qabsashadii herarna waxba kama oranin weerarkii Zaylac la soo weeraray xabashada soo weerartayna waxba kama oranin dadkii Soomaalida dhulka joogay baa istifaacay intay istifaaci karayeen xabashadu markaa umay suurto gelin inay Zaylac qabsadaan Ingiriiska Faransiisku waxay yiraahdaan 1888 ay hadda halka xuduudka u ah waqooyiga Soomaaliya iyo Djibouti xuduudkooda ay kala calaamadsadeen oo xuduudka hadda jira ay samaysteen dhulka hadda la yiraahdo Soomaali galbeed qayb kamid ah wuxuu Ingiriisku heshiis kula galay xabashada 1897 meelahaas ayuu heshiis kula galay inuu dhulkaasi mustaqbalka uu noqon doono dhul Itoobiya leedahay oo maxaa la yiraahdaa ay yeeshaan Talyaanigu walaal marka wixii heshiis u eego la dhihi kara dadkii meelahan joogay bay wuxuun adigu maartay ay la hadleen saldanadii Caluule iyo saldanadii Hubiye iyo kuwaas maartay buugta taariikhda ku qoran inay dadkii dhulka joogay maartay xogaa inaan idin gumeysana rabnaa ay kala hadleen waxay dhahaan 1890kii ay haddana marka taalo Talyaanigu leeyahay wuxuu yimid magaalada Warsheekh iyadana waqooyiga Muqdisho ku taala dadkii deegaanka way iska dhiciyeen way la dagaalameen Saraakiil bay ka dileen way u suurtagali weeday inay Talyaanigu Warsheekh qabsadaan 1993kii marka la maraayo markab kale ciidan oo leeyihiin Talyaaniga waa magaalada marka yimid waa lagu dagaalamay Saraakiil baa laga dilay Talyaaniga way ka laabteen iyaguna marka way qabsan kari waayeen marka la soo gaaray 1896 ayaa barasaabkii Talyaanigu ugu horeeyay dhulka Soomaaliya loo soo magacaabo nin oran jiray Antonio Secchi ayaa Talyaanigu ciidamo u leeyahay baa weerar soo qaaday say Soomaaliya u qabsadaan deegaankan la foola la yiraahdo duleedka Muqdisho la isku dilay lafa halka yaala waxay dhahaan waa la fihi Talyaaniga magaca laftiisu meeshu ka yimid saasi sheegay ka dhammaan dadkii ciidankii Talyaaniga ay soo weeraray halkaas ay ku dhinteen baa la yiraahdo uu kamid yahay maartay barasaabkii ugu horeeyay Talyaanigu ay Soomaaliya dhulkeeda soo magacaawdaan marka gumaysigii magaalada marka mar labaad bay isku dayeen haddana inay qabsadaan ciidamay u soo direen waa u suurtoobi weeyday dadka waa iska dhiciyeen waa la dagaalamay xeebtan Muqdisho iyo markii dhulka u dhaxaysa dagaal ka dhacay Talyaanigu markii dambe iyaguna dagaal baan bay soo qaadeen dad badan oo Soomaali oo dadnimadooda iyo diintooda difaacanay ayay walaalka ku dileen Talyaanigu waxa la yiraahdaa dad badan oo Soomaali oo qaar dhaawacayeen baa intay afduubeen ay afduub xamar ku geeyeen waxay dhaheen barasaabkayga aad disheen Antonio Secchi ay rabnaa inaan taal xusuusiyad Muqdisho uga dhisno idinkaana qasab ku dhisaayo macnaha inta dadkii xamaalahan ay u ka haysteen dhinaca waqooyiga de halgankii ugu ballaadhnaa gumeystaha lagu la dagaalay halgankii Daraawish ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ayaa isaguna halkaas ka bilaabmay waxay yiraahdaan adigu dhamaadkii qarnigaas buu halganka sayidku uu xoogeystay
dagaaladii dee taariikhda inta badan lagu sheegay dagaalkii dulmadooba la dhihi jiray iyo waa tala geli doona taliyaha ingiriiska iyo ay digiriri doonaan iyo sayidka ninkii soomaalida caanka markii dambe dhexdeeda ka noqday Richard Coffey waa dagaalada ku dhiman doona Coffey waxay dhahaan 1912 ayuu barasaabkii ingiriiska ee goboladaas ayaa waxa ka fikiray in la aasaaso waxaan ku macnayn karna inay yihiin macawisleedii xilligaas iyaga Camel Corps bay u bixiyeen waa ciidamada ku dagaalama awrta ciidamadaas markaa sayidku dhulkii baadiyaha ahaa oo dhan intiisa badan ciidamadiisii baa gacanta ku dhigay gumaystihii xeebaha iyo dhulka magaalooyinka ee hoose ayay maxaa la yiraahdaa ayay ku koobnaa macawisleeda maanta kuwaas waxa ay ka sameyn yihiin waa in uu adeegsanayo gumaystihii loona adeegsanayo dadkoodii sidaas way gumaystaha la dagaalamay marka 1912 baa la aasaasay ciidamadaas golaha wasiirada ingiriiska ayaa waxay ansixiyeen in ciidamo la yiraahdo macawisley Camel Corps oo dhulkaas jooga in la sameeyo ciidamada cusub marka ninka la yiraahdo Richard Coffey ayaa loo dhiibay Richard Coffey marka hore isagu wuxuu joogi jiray South Africa Koonfur Africa ciidamada ingiriiska joogay uu kamid ahaa sarkaal iska darajo dhaxaab u ahaa markii dambe 1905 baa waxa loo soo magacaabay madaxa siyaasadda xafiiska gumaysiga ingiriiska ee madaxa siyaasadda gobolada waqooyi u magacaabay dhowr sano uu joogay yiraahdo uu iskaga tagay Nigeria aado Nigeria loo wareejiyay 1912 la soo celiyay markaas oo loo dhiibay ciidanka kadibna 1913 dagaalkii dulmadooba waa ka dhacay halkaas uu Richard Coffey uu ku dhimanay Talyaaniga haddaan ku laabano Talyaanigu markii dambe waa soo awoodeystay inay koonfurta xoog ku qabsadaan isku dayeen Talyaanigu waxay qabsadeen 1912 waxay qabsadeen Walaweyn waxay qabsadeen Balcad waxay qabsadeen Maxadaay 13 waxay qabsadeen Buurxa Kabiye Baydhabo 14 waxay qabsadeen Waajid iyo Xudur iyo Tiyaglo iyo Buula Barde iyo magaalooyinkaas 1924 marka kacdoonkii Allah u naxariistay Sheekh Xasan Barsane ayaa ku kacay Xasan Barsane way qabteen way soo xireen Maxadaay buu dabcan ayuu isaga inta badan la kacdoonkiisu ka bilaabmay degmada Maxadaay ereyadeeda Talyaanigu way xireen markii dambe Xasan Barsane markii dambe xabsigu uu ku dhintay waxay u badan tahay dabcan iyaga dilay waxaa jira dad kale oo iyaguna halganka inta badan Soomaalida qayb ka qaata oo dadka gabayaaga ah abwaanada waxay yiraahdaan Soomaalidu labada shay ee hantida ay haysataa waa diinta Islaamka iyo suugaanta waxay yiraahdaan labada shay ayaaba ahba hantida dadka Soomaalidu ay leeyihiin marka Soomaalidu inta badan meelaha ay tahay taariikhdooda in laga daraasay meelaha ugu muhiimsan waxa kamid ah gabaygooda ayaa kamid ah oo dabcan haashiyahooda ay maartay kaga hadlaan يعني أحداث كستو سومرتا إسقى يكون عبيد سيد كدي وانجلين كران وي Soomaalidu inta badan dad wax qoraana ma jirin qoraal ma jirin ka sida ugu fudud qofka Soomaaliga ah uu taariikhdiisa ku diiwaangelin karo gabayga suugaanta yahay ayada Soomaalidu ka dhibaatadooda dareenkooda hankooda halgankooda doodahooda waxa soo dhan ahaanshiyahooda ummadeed meelaha ku bandhigaan ee laga dhadhamin kara waxa weeyaan walaal waa gabaygooda iyo suugaantooda marka qarnigii 20aad markii daraawiishtii ay jirtay Sayid Maxamed Cabdillah Xasan halgankiisii si guud marka la ururiyo waxaa jira dad badan oo suugaanyahan oo laga fahmi karo sidii ay dhacdooyinku ahaayeen ama qayb ka qaatay in dadka Soomaaliyeed ay gumaysiga ka baxaan oo gobonimo raadsadaan oo dadka baraarujintoodii xalayde sayidkaaba ugu horeeyay ama kamid ah dadka ugu mudan empire-ka dhan ama jiritaanka dhan ee daraawiishada waxyaabaha ugu waaweyn ee ku dhisnay wuxuu ahaa gabayga waayo Sayid Maxamed Cabdillah Xasan isagu idaacadna ma haysan meel dadkiisa fariimo ka gaarsiiyana ma haysan laakiin meesha ugu muhiimsan ee uu dacaayadaha iyo propagandada gumaystaha kula dagaalami jiray dadkiisana uu ku wacyi gelin jiray kolba war saxaafadeedada ka soo bixi jiray isaga gabayga ahaa waxa jiray isagana calanka u siday waxa isaguna markii dambe dadka gubaabadooda qayb ka ahaa Cabdullaahi Suldaan Timcade waxa la xusuustaa ninkii darwiishka ahaa Ismaaciil Mire Cilmi Maxamed Cabdi Xaashi Faarax Nuur Wacays Xaaji Aadan Axmed Xasan Xaaji Aadan Afqallo Yuusuf Xaaji Aadan Cilmi Qabile Sheekh Bashiir Sheekh Yuusuf Sheekh Xasan oo isaguna gabayalaha Maxamed Ismaaciil Barkhad Cas Soomaalidu xilliga hore balaayo cas bay dhihi jireen Barkhad Casna waa la yiraahdaa Guhad Cabdi Gahayr maxaa la yiraahdaa Maxamed Nuur Laangare Cabdi Iidaan Faarax iyo dabcan boqolaalka kale Soomaalidu ay yaqaanaan ayaa waxay bilaabeen abaabul ah dadka Soomaaliyeed inay gobonimo u halgamaan maxaa la yiraahdaa ay ku baraarugaan doorka taxriidka inay qaataan sayidka waa la xusuustaa marka hore dekadu ku iman daawashiyo maxaa la yiraahdaa daawasho ahaan marka xiga dalku idinku oran duunyo dhaafsada ee marka xiga dabku idinka dhiga dumar sidiisii marka xiga dushu idinka rarisada dameera macnaha waxa weeyaan waxa la rabaa dadka inay dareemaan xaqiiqada nololeed ee hortooda taa Faarax Nuur Wacays oo kale wuxuu yiri Ingiriis Xamaariya Talyaani way akay kamiye arliga la kala boobaya nin uu taal roonay haduu awrku dooxadan ku furo
eel kalaa xigaya odayadiina loo yeedhayay la anfac siinayo haddaa niman islaamiya tihiin aadan faraciisa inaga daayayay inaan ku dhicin bahal afkiisiiya waxaad dareemaysaa marka inay jiraan odayo Soomaaliyeed oo Ingiriiska Talyaaniga dowladda gumaystu ay wax siinayaan oo danahooda ay ku fushanayaan wadaba dhilif isaguna leeyahay warni odayadiinaas waxaas saxsaxaysan inaga daayay Ismaaciil Mire Cilmi isagana waxa gabaydiisii kamid ahaa isma oga agooniyo ninkii aabihii dilayay isma oga atoor qadow bartiyo uubta loo qodayo isma oga waraabaha amliyo awr habeensaday isma oga Smith iyo ninkii ay rafoofsaday Smith wuxuu kamid ahaa dadkii Ingiriiska ahaa dhulkaas mar kale Ismaaciil Mire wuxuu leeyahay guuguulaha nin wuxuu la hadlayaa guuguule shimbirkan guuguulahayo meel ka ceeyo arkay waa suugaanta ay yiraahdaan waa ekeey marka guuguuluhu rabaa inuu la hadlo uu yiraahdo guuguulahiyo haddaad guuga u ooyeysi buu haddaad moodo kaliga inuu gubayo jiilaalku gartaa maaha kaliga inaad gaar u cabataay gidigood adoomaha waxa gaaray nabar weyn wuxuu rabaa inuu ku yiraahdo guuguulaad laftaada waa lagu gumaystaa waa sax laakiin annagiba waa kula qabnaa kaliga maaha Cali Xuseen Xirsi ilaahay u naxariisay wuxuu yiri isna fiin buu la hadlay waa shimbirihii dhulka Soomaaliyeed iskaga noolaa fi hay-ada ololayo oo hin ciirsaday haddii aan lagu imanin waad aamusi lahayde waxaad aragtay waan kula qabaa uur ku taaladay Maxamuud Cabdi Xaashi mar dhaweydaan ka hadlay qoto iyo taleex baa la simay qaydka seeraha ee sidii qaalmo booliyo dhulkii waa la qaybsaday isbaqiil banays buu u yimi qoortan doogga leh wuxuu ku qabtaba daayay waa la idin qalayaa sinqooreedkan lay dhigay wadadan lay qoqobadeeyay haddii ay u qushuucdaan bari buu qaadan waa imanay qoonsada halka waxa ku jira qabar laxaad weyn oo markii xuduudaha iyo waxa la sameeyay oo cagaf iyo dhulka la gelinayo wadooyin la bixinayo xuduudihii baa la rabaa in la calaamadiyo dadkii Soomaalida ahaa masaakiintaana qaar badan baa waxay moodeen horumar iyo wada iyo wax laga hadlayo marka wuxuu leeyahay qoonsada halka waxa ku jira qabar laxaad weyn mar kale Maxamuud Cabdi Xaashi wuxuu yiri kol haddii dhulkeeni xadkaas dhararsan loo yeelay dhalaan weeye kii haybiya dhaqasho xoolaad marka walaal suugaanta Soomaalida ee gobonimada ah waxay taabanaysaa dhuuxa hoose ee dadka Soomaalida barqad casoon mar dhaweyd ka hadlayay wuxuu yiri awowgii ninkii indhaha tiray ninkii aabahay adoonsaday ninkii anigana iibsaday ninkii ifka igu aduun tiray hadaan oga hoonan ka aarsan kareyn ninka aragiisa uurkaan ka nabci aan ooyay albaabka iyo xidha xaaji aadan afqalooc wuxuu yiri gobonimada daleel lagama helo daaradoo galay hadaa doonan leedahay nafta diiq la geliyay waa muriya deebaaq waxa dib ugu aydaane mar hadaan waxaan doonayay dawladnimo waayay danta weeye inaan aamusa eega dabadeed dulliga ku jira noloshu waa idinku deelqaaf dhacdooyinkaas marka waxay muujinayaan in dadkii Soomaaliyeed ee gabyaaga ahaa ay doonayaan xaaladda ay dadka Soomaaliyeed ku jiraan inay wax ka bedelaan oo gobonimo iyo halgan oo bilaamo mowqifkooda meeshuu jirayna ku cadiya way jireen qaar dhinaca kale jiray laakiin kuwaas taariikhda ictibaar ma leh meel waxba ma galaan kuwana waxa weeyaan kuwii taariikhda dhinaceeda quruxda badan ku qornaa aan ka dhaxgalay waxa la yiraahdaa sayidka iyo ciidankiisii iyo dadka jihada kala jiray marka laga hadlayo meediyaha awood ahaan dadkaas ayaa dacayad aad ugu badnaa dhanka kalena isku dayay in ay halganka halkaas ka socda lagula jiray iyaga inay ka dhigaan wax ay hogaaminayaan dad gacan ku dhigalayaal ah dad nabadda ka soo horjeeda ugu dambeyntiina taariikhdu way isbedeshay si isku bedeshay lama oga dadka hadda aad sheegaysana lama yaqaano sayidka iyo ciidankiisina taariikhdu way waarisay bal ka warran arrintaas taariikhdu horta waa run kuwaas ayaa cod dheera maantana iyaga cod dheer gaaladu waa inaga tasiilaad badan yihiin waa inaga hub badan yihiin waa inaga dhaqaale badan yihiin waa inaga iclaan badan yihiin waxaa jira article runtii xiisa badan oo nin dadkii gumaystahaas la soo shaqshaqeeyay kowdad laga soo xiganayo oo markii dambe la qoray dambe la qorayo sidii xafiiskii gumaystaha Ingiriisku uu u sameyn jiray dacaayadaha ka dhanka Daraawish iyaga sameyn jiray waa gartay waa kuma ninkaas magaciisa hadda ma xusuusan laakiin waa la helayaa bildaan website-ka la dhahe ayaa tixraaca laga raadin karaa waa la heli karaa wuxuu ka qoray markaa jihaadkii Daraawisheed iyo dacaayadihii ay ka sameyn jireen maxaa la yiraahdaa xafiiskii gumaystaha Ingiriisku wuxuu markaas si farshaxan uga hadlayaa sidii xafiiskaasi uu dacaayadaha isagu u abuuri jiray kadibna loo fulin jiray laga yaabo dad badan oo masaakiinayna inay ku degmi jireen maantana waan hubnaa in dacaayadaha la sameeyo dad badan oo masaakiin ay ku degan yihiin maxay taariikhdu isu bedeshay marka waxay isu bedeshay jiilashu isbedelaan horta markii jiilku isbedelay iyagoo codkooda muxuu u sarmaray midkan kale u baaba'ay 50 sano kadib qofku wuxuu isweydiinayaa labadii dhinacee loo lamayay maxay isku hayeen halkaas su'aal buu isweydiinaya kadibna
sayidka gabaygiisaa sheegaya wixii uu taagna inuu doonayo Soomaali xora oo madax bannaan oo islaam ah. ingiriiskuna muxuu doonayay dokumentigooda ay ku qoran tahay waxay doonayeen inay dalka qaybiyaan gumaystaan xukumaan khayraadkiisa qaataan qofka Soomaaliga ay markaa sayidkii kuwana way sahayaan iyagu way loolamayaan waxyaabo kala ka dhaxdhaxeeya taasi dhib ma laha laakiin qofka Soomaaliga ay 50 sano kadib dhashaa bogogga taariikhdu buu fiirinaya qaladaadka yaryar ee dhacdhacaya waxaasi waa dhib ma laha wuxuu arkayaa markaa sayidkiina wuxuu u taagnaana uu arkaya kuwii ka soo horjeeday waxay u taagnaayeen uu arkaya waxa quruxda badan buu qaadanaya markaas waxa jiro maanta xaqiiqa dad badan oo sayidka la dagaalamo ubadkooda ay ka xishoodaan inay ku abtirsadaan sayidkiina beela Soomaaliyeed baa kala sheegtaba hadda kulli waa la isku haystaa xaqiiqa way tan hadda maanta aan dhex joognaa 100 sano kadib waxa la arki doonaa dad Soomaaliyeed oo adeerkay baa kamid ahaan jiray isagoo faanay laakiin xaqiiqadu waxa weeye taa 100 sanadood kadib laga faanayo waxa ka fiican qofku xaqiiqada marka uu ku nool yahay inuu indhaha furo oo uu isku dayo inuu fahmi karo waxa la isku hayo marka walaal waxaan isleeyahay waxyaabaha fahamkayga aniga iska kooban wuxuu sheegaya qofku markuu taariikhda u laabto wuxuu arkayaa labada dhinac maxay isku hayeen u soo baxaysa marka hebelna yula safna marka adeerkii ama aabihii oo dabadhili foo ingiriisku maartay ama talyaaniga ama xabashidu ay ku shaqaysan jireen qof Soomaali oo maanta doonaya inuu ku abtirsado runtii ma jiro marka taas laga yaabaa inay qayb ka tahay marka walaal sidaas horta gobonnimo doonka Soomaaliyeed abwaanadu u socdeen dhinaca siyaasadda xaaji Faarax Omar oo kala magaalada la yiraahdo Cadan Soomaaliyeed bariga ay aad u tagi jireen ayuu magaca ururka Islaamiga ee Soomaaliyeed oo doonayay inuu dhaqdhaqaaq islaami iyo gobonnimo doona sameeyo magaalada Cadan ka sameeyay talyaanigu dagaalkii labaad ee adduunka markaan iska bilaabmi doona talyaanigu markaa waa ku Itoobiya qabsaday Eritrea ay horbay u haysteen xamar horey u haysteen waqooyiga laftiisa way qabsadeen marka wixii ay dhihi jireen Italian East African Empire ayay sameeyeen oo gobolka geeska Afrika oo dhan talyaaniga isku fidiyay ingiriiska iyo quwadaha qaybtii hore dagaalka waa laga adkaaday marka ingiriisku Suez Canal iyo meelaha inuu difaaco ayuu isku dayay waatan hadda soo sheegaynay marka inuu talyaanigu ilaa Addis Ababa qabsaday oo boqorkii xabashidu qaxay oo taasa iyaduna xilligaas dhacday adigu qoladii way soo laba kacleeyeen ingiriiska mar labaad buu soo laabtay dhammaan dhulka Soomaalidu qabsaday isaguna marka Djibouti laga reebo NFD hore u haystay dagaalamayeen waa dagaalkii labaad adduunku socday 1939 ilaa iyo 45 kala soo gaaray marka 36 baa ayuu ku duulay talyaanigu Addis Ababa uu qabsaday marka dambe talyaaniga iyo Jarmalkii waa talaga adkaan doona marka ingiriisku dhammaan dhulka Soomaalida uu qabsaday marka Djibouti laga reebo NFD uu qabsaday hore u haystay Soomaaliland uu qabsaday xamar uu qabsaday maxaa la yiraahdaa gobolkan Soomaali galbeed uu qabsaday 1941 marka dhammaan dhulka Soomaalida waxaa xukumi jiray ingiriiska waxyaabaha runtii habeenada soo socdanaya Soomaalida aad u xusi doonaan waxaa kamid urur la yiraahdo SYL markii hore waxaa la oran jiray SYC Somali Youth Club markii dambe waxa uu bixiyeen Somali Youth League ayaa loo bixiyay ururkaas 1943 waxaa aasaastay dawladda ingiriiska waa ururka caawa la oran doono ururkii Soomaalida xorriyadda gaarsiiyay 15 dhalinyarada waxaa aasaasay dawladda ingiriiska hal ujeeday dawladda ingiriiska u aasaasay maadaama koonfurta Soomaaliya muddo badan talyaanigu uu gumaysanahay talyaanigu wuxuu dadaal ugu jiray inuu soo laabto ficlanna uu soo laaban doona markii dambe ingiriisku wuxuu diidanaa marka talyaanigu inuu soo laabto isagoo wuxuu rabay inuu Soomaalida dhan wada gumaysto marka wuxuu samaystay urur uu muujiyay inuu siyaasi yahay uu isagu dhisay uu doonayay qalbiga dadka Soomaaliyeed inuu xado uu dhinaca ingiriiska u dumiyo xaggii ay dadka Soomaaliyeed yani talyaaniga aadine xaggiisa soo aadaan markii dambe magaca laga bedelay 1947 SYL loo bixiyay waxba ay taariikhdu sheegto waxa kamid ah Cabdiqaadir marka waxa leedahay SYL waxay ahayd murtazaqo ingiriiska dhisay oo talyaaniga lagu dagaalamay xaqiiqadu sidaas waa masdarka sources meel kasta ku qorantay qofkii raba wuxuu u laaban karaa Untold History oo ninka la yiraahdo Maxamed Turunji ee Soomaaliga buugu qoray 1941 ilaa iyo 60 meelaha Soomaaliya wixii ka dhacay ayuu kaga waramaya way ku wada qorantay lacagtii siin jireen baa ku qoran qofkii raba waa raadin karaa inay kirada guriyaha ka bixin jireen bal maxaa la yiraahdaa brasaabkii ingiriiska ee maxaa la yiraahdaa xamar joogay xafladahooda khudbaduhu ka jeedin jiray oo ku qoranta aad iyo aad marka 47 baa marka SYL loo bixiyay waxay yiraahdaan haddana dadka qaar un baa iskaga jiri kara ma ogtahay waxay yiraahdaan ninkii loo jiray Cabdiqaadir Sakhawudiin oo ahaa maxaa la yiraahdaa SYL kamid aha isagu si uu wuxuu u doonayay ururkaasi inuu urur midab islaami ah leh inuu ahaado
oo marka Soomaaliya xorriyadda xataa ay gaadho qaabka Soomaaliya loo maamuli karo inay sidaa ahaataba ay qoraalada qaarkood sheegayaan laakiin xogiyihii guud ee ururka Yaasiin Cismaan Sharmaarke isagu wuxuu doonayay urur siyaasi oo secular cilmaani oo Soomaaliya maarta xorriyadda gaarsiiyay inuu walaal ahaado marka isku dhaf noocaas ayaa horta jiray 46 markii la soo gaaray dawladihii dagaalkii labaad ee adduunka ku guuleystay waxay ka fikireen niyo dawladihii dhaxalkii kuwii laga adkaaday maxaynu ka yeelnaa marka Talyaaniga ka mid ah dabcan dawladaha laga adkaaday waxay ka fikireen marka maxaynu ka yeelnaa dawladihii Talyaanigu uu gumaysan jiray dhaxalkoodii marka dawladahaasi koonfurta Soomaaliya wafdi bay u soo direen xamar bay soo gaadheen 1948 bay xamar yimaadeen guddiga xaqiiqo raadinta ahi adigu wax la soo wadwadaba go'aankii ugu dambeeyay wuxuu noqday inuu Talyaanigu koonfurta Soomaaliya ku soo laabto Eritrea iyo Ethiopia lagu daro si federaali markaas u eg Liibiya xorriyad la siiyo marka inaga go'aankii u soo baxay koonfurta Soomaaliya wuxuu noqday in Talyaanigii gumaysan jiray lagu soo celiyo 1950 buu soo laabtay muddo 10 sanadood oo maxamiyada waa gartay 60kii marka 10 sano oo maxamiyada ayaa la soo maray 60kii Talyaanigan xamar uu ka guuray Ingiriiskana Hargeysa uu ka guuray kadibna waxaa lagu dhawaaqay wixii xorriyadda lagu sheegay xorriyadaas ma dhab ayay ahayd mise dhalanteed maxaa ka aaminsan tahay waa sax 1960kii 26kii Juun ayuu guuray Ingiriisku habeenimo sabti oo axadi soo gelayso ayay ahayd baylaad ayuu ka guuray Hargeysa 4 maalmood kadibna waa ka xamar Talyaanigu ka guuri doona Talyaanigu waaba la ogaaba 10 sano kadib inuu ka baxaayo maxaa la yiraahdaa xamar uu ka baxaayo waa la sii ogaa maana 1950kii markuu xamar ku soo laabtay mandate-ka Talyaaniga la siiyay 10 sano waxa marka waa la sii garanayay inuu guuri doono nidaamkii dawladeed ee marka habeenkaas dhashay horta wuxuu dhaxlay hoggaan xumo waa gartay waxyaabihii uu dhaxlay himiladii dadka Soomaaliyeed ay ka filaayeen ragaadiyay ama markii dambe waxa la oran karaaba fashiliyay waxa kamid ahayd horta hoggaan xumo sidee waa arki doona laakiin hoggaan xumo ay horta koow ka ahayd waxaa laba ka ahayd dhaqaale xumo dhaqaale ma jirin miisaaniyad ma jirin heerka aqoonta dadku si guud u isku hooseeyay isgaarsiin jideed waxba ma jirin marka horta nidaamka dawladeed ee Soomaalidu ay xorriyadda loo siiyay nidaam sidaas ah hoggaanku sidoo u xumaabaday weydiis waxaan rabaa inaan fiiriyo bal dadkii Soomaaliyeed gabiyay siday u arkayeen wixii dhacay ayeesoo dhow Cabdullaahi Suldaan Tima caday Soomaalidu wadaniya dal jacayl wanaag badan ay ku tuhmaan habeenka xorriyadda 25 Juun 26 Juun ay soo galayso Hargeysa ka gabiyay geeraar buu tiriyay kaana siib kana saar la yiraahdo Soomaalidu ay yaqaanaan waxaan wuxuu yiri Soomaalidu calan taagtay saaka noogu horeyso in sidayda tihiin iyo in kala aan saxayne 3 wiig iyo maalmo haddaan soo cuni waayo safrad la igama yaabo oo sarina maysa naftaydu saaxirkii kala guurnaya sareeyo manusqaamow aan siduu yahay eegno ee kaana siib kana saar isaga markaa niyad wanaag yidi diilo in gumaystihii baxay baa ka muuqata waxaa jirin laakiin nin very skeptical ah Guhaad Cabdikaaye wuxuu yiri goodii abees bay isbedelay garana maysa goodii abees bay isbedelay garana maysaane gorayga ilmii buu ka tagay guumiska ahaa iyo gocondooyin baa aasan iyo mici gabaare iyo karalkaama guurin halkan uu guud madow yahay buu yiri ninkaas marka okiyaalaha xilligaas u xirnaa dadka kale uma xirnayn wuxuu arkayay Ingiriisku waa albaabku ka baxay laakiin daaqadu ka soo galay nidaamkii dawladeed fikradihiisii ideolojiyadiisii xeerarkiisii dadkii isagu uu tababartay iskuuladiisa ka soo baxay markii dambe jaamacadihiisa scholarshipka uu diray dadkaas ayuu kursiga kaga tagay marka Guhaad Cabdikaaye isagu wuxuu leeyahay waa niyo karalkaama guurin midabkiisa waa isbedelay buu leeyahay iyo magaciisa dadkii aragtidii waxaan baarsanaa isma bedelna karal wali waajo dadkii u akhriyay dadka la keensaday waxa jiray nin aan habeenka isagu gabiin laakiin wax yar kadib isna wax fahmay la oran jiray Axmed Ismaaciil Diiriye Qaasim wuxuu yiri dambi kuma hadlaayay ma arag dawladdan rabay daab gudimo wali sooma jarin wiilashaan direeyay sidii baa dagaalow biyaha loo dawariyay isma doorin gaalkaan diriye daarta kii galay dusha midabka Soomaaliya baa dugulka moodaayay misna lagu ma diirsaday qalbigu waa dirkii karale halkaas uu gabagabadaas u yimid ninka la yiraahdo Qaasim Cali Xuseen Xirsi isna wuxuu yiri wax la haybiyaba dawladnimo waa la soo helay nin waliba haduu buu toshuu hoorsan leeyahay ha yeeshee sidii loo hantu hadalka joogay war wixii aan ku gabiyay raadinay waa la helay laakiin wixii siday u eg tahay sideen ku helnay ayuu midabku u eegyahay Tima cadii hadda aan soo sheegaynay sidoo u hadlayay 60kii ayaa mar dambe 10 sano kadib
ayuu wuxuu yidhi magaabada hashaadaa ka roonmay dhanaan kale ee manfacaan la cunin baa jiro mowdka kuu sida ee Maraykan iyo waa kay baxshaan madaxda NATO wuxuu arkay dadkii la doortay madaxda laga dhigay oo saf ugu jiro oo inay hal sawir soo galaan oo maxaa la yiraahdaa nimankii mugooda waa ahaa maalin la casuumo ayaa gabayga ku sii jira moogta marka wax yar oo madaxweyne maxaad noo qabatay Maraykankan safar ku tagnay dib uu ka ogaaday ayuu ka dareemay marka walaal nimankaas horta waxay muujinayaan hoggaan xumada aad weydiisay macnaha suugaantaas waxa laga dhaxarkayaa wixii la rajaynayay iyo waxa meesha yimid say u kala duwanaayeen caqabadaha kale dabcan yimid waxa kamid ahaa marka bidood oo meesha la keensaday iska noqday xaqiiqo saas ururka midowga Afrika marka Addis Ababa xarun looga dhigay 1963 May 32 dawladood oo xilliga Afrika xorriyad ka qaatay ayaa ku midaysnaa ururkaas ururka midnimada Afrika waaga la dhihi jiray ururkaas marka isaguna arrin kale oo runtii khatar ay meel mariyeen waxay go'aamiyeen xuduudaha Afrika inay ahaadaan sidii gumaystuhu kaga tagay oo waxba iska bedeleen Soomaaliduna dareenka ku jiray marka horeba xamar iyo Hargeysana mideeyay kuwa kalena loo rabay waxay dadkii Soomaaliyeed cadawga gogoostay la isu soo celiyay ururkii waxa uu go'aamiyay xuduuduhu sidii gumaystuhu kaga tagay ay ahaanay arrintaasi dadkii Soomaaliyeed waxay u arkeen markaa wax jiritaankooda runtii aad khatar uga ah cadaawad badan ka muuqato Soomaalidu waxay rumaysan yihiin dhul kaliya kama maqna dabcan dad iyo dal ba moogtay dad baa ka maqan marka in dadkoodina maqin dalkoodina maqan yahay umad kala tagta isku soo celin dawladda Ingiriisku waxay afti ka qaaday gobolkan hadda NFD la dhaho Gaarisa Wajeer dhulkan ay afti ka qaadeen maxaa la yiraahdaa oo ay doonayaan maxaa rabtaan inaa samaysaan mustaqbalka dadkii Soomaaliyeed dhulka deganaa 89% 90% waxay doortay waxay dhaheen jamhuuriyadda Soomaaliya walaalayaan rabnaa inaan ku beerno Ingiriisku waa iska indhatirey wax kala sooci kara ma jiraan dadkan wax isugu kan darsan ma jiraan Ingiriisku aftidiisaas uu fiiriyay uu indhuhu ka qarsaday wuxuu ku qasbay inay kamid ahaadaan dalka Kenya kadibna wixii ku dhacay 1963 maxaa la yiraahdaa iyo de markii dambe wixii dhacay ayaa maxaa la yiraahdaa ayaa darkis 66 mudaharaada waxay ka bilaabmay Djibouti iyaguna lafta ay xorriyad ku dalbanayaan ay rabaan inuu Faransiisku dhulkooda ka guuro xilligaa waxa Djibouti booqday madaxweynaha xilligaas Francisque de Gaulle ninkii la dhihi jiray marka dil iyo dhaawac ayaa loogu jawaabay dadkii reer Djibouti Soomaalida waxay dhulka deganaa doonayaan inay xorriyad helaan Soomaali galbeed oo runtii carab ballaaran ka dhalatay markii dhulkaas lagu wareejiyay waxay isku dayeen inay maartay gumaystaha iska dulqaadaan dadaal kastay sameeyeen laakiin uma suurtagelin iyagana waxa loogu jawaabay dagaalo iyo dib iyo waa la yaqaan Soomaali galbeed wixii kale ilaa maanta runtii ka socda nin la oran jiray Suldaan Maqtal Daahir baa mar wuxuu ka aasaasay jabhad Nasrullah la dhihi jiray adigu sifad diineed ay ka muuqdaan inay bal gobolka kula dagaalanta iyadana runtii guul badan laga helin Cabdullaahi Suldaan Timcadde gabaydiisii waxa kamid ah waxbashada waagaas kula hadlay dhulka inaynu wada sheeganaa way la dhalanteeda dhowada hawaash baan cid kale naga dhaxaynayna dhanaasada dadkida maalin dhowdii kala qubane marka wali abwaanka Soomaaliyeed wuxuu aaminsan yahay in wixii ka maqnaa ay ka maqan yihiin inaan lahayn ilaa maanta aan wada hadlaynana Kenya iyo Ethiopia dhulkaas xoogay bay ku haystaan labadoodaba dastuurkooda waxaa ku qoran in dadku ay ka tashigooda ay madax bannaan yihiin xuquuqdooda maaragtay madaniga iyo kuwa siyaasiga ay xor yihiin qawaaniinta caalamiga laftooda wax sidaas ah ku qoran laakiin hal daqiiqo oo noloshooda kamid ah dadka dhulkaas ku nool xaqa ay ka tashiga ee ay maqlaan hal daqiiqo kamid ah iyaguna runtii may maaragtay walaal ma helin aad iyo aad maanta taariikhdaas aan soo sardinay siday u soo socotay wadcigan maanta aan ku jirno ayay ugu dambeyntii soo gaartay haykalkii uu noo dhisay gumaystaha ee ilaa hadda soo socday xilligaas nidaamkaas la sameeyey oo ilaa maantana soo gaarsiiyey dad diidanaa ma jiraan maxayse ku diidanayeen dad culimo u badan ayaa horta dadkii muuqday ee diidanaa ay ahaayeen dadka culimada ahi waxay arkayeen in nidaamkii gumaystuhu ka tegay dalkii lagu dhaqay shareecadii islaamkana dhinaca la iska dhigay barlamankuna uu ansixiyey inuu dalka Soomaaliya dal secular oo cilmaaniya uu ahaado culimadii markaa ayaa ugu badnayd horta dadkii fikirkaas ka hor yimid dadka magacyadooda inta badan bugaagta ay ku qoran yihiin baraaruga noocaas waday ee diidanaa waxaa kamid ahaa Sheekh Nuurudiin Cali Culuw oo reer Qandala ah Masar iyo Sacuudiga dhulkaas ayuu wax ku soo bartay waxaa kamid ahaa Sheekh Cabdiqani Axmed oo reer Bakool ah oo isaguna Masar jaamacadda Azhar ka baxay waxaa kamid ahaa Sheekh Maxamed Axmed Nuur Garyare oo reer Dhagaxbuur ah Suudaan iyo Sacuudi Arabiyana wax ku soo bartay waxaa kamid ahaa Sheekh Maxamed Macalin Xasan oo dadku ay rumaysan yihiin inuu ahaa kan ugu saameynta badnaa ee doorka ugu weyn baraaruga islaamiga ee Soomaaliya xilligaas ka qaatay marka horta walaal shakhsiyaad culimo ah sidaas oo diin arkayay maaragtay
ayaa ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey horta nidaamka dawliga ee Soomaalida iyo sida wax loo hogaamiyey diiday taasi markaa waxay dhashay 1967kii in ururka naxda la odhan jiray xamar laga asaaso si qarsoodiya urur islaami 1969kii waxdadii waqooyiga ayaa iyagana la asaasay oo doonaya nidaamkan bal inay maaragtay si uun isku bedel loo sameeyo 70-yadii markaa waxaa si qarsoodiya u asaasmayay ururo diiniya waxaa la xusuustaa iyagana Al-Ahli ayaa iyagana xilliyadaa la sameeyey laakiin waalida kala dhacday 1971 marka la marayo kacaankii Maxamed Siyaad Barre oo garwadeenka ka ahaa waxay yiraahdeen dalka Soomaaliya waxaan ku dhawaaqay inuu noqdo ama nidaamka hanti wadaaga cilmiga ku dhisan scientific socialism ayaanu qaadan waa nidaam secular hatta aan ahayn laakiin etis mulxid ay qaatay marka go'aankaasi culimada intii aamusnaydna inay kacdoon iyaguna ay bilaabaan ay diidan yihiin dadka ugu digayaan waxa sii xigay haddana 1975 xeerkii qoyska wixii loo bixiyey oo culimadii ka hortimi aad garanayso 10 ka midna la dilay qaar ka mid ah xabsiyo dhaadheer lagu xukumay qaar ka midna xabsi daayin lagu xukumay marka sanadkii 1977 Maxamed Siyaad Barre waa ku dhawaaqay inuu Itoobiya dagaal ku qaado midowga Sovieti oo markaa hore Maxamed Siyaad Barre xataa scientific socialism kan uu iyaga aawadood u galay taageeradiisii way kala laabteen waxaanay taageero buuxisay ruushku markii dambe wuxuu aaminsanaa Soomaalidu inaanay scientific socialism qaadan karahayn oo dad muslimiin ay yihiin laakiin scientific socialismku meeluhu ka hirgeli karo ay dadka Itoobiyaanka ay uga fududahay markaa madaxweynihii Cuba Fidel Castro laftiisu ciidamo u soo diray inay difaacaan Itoobiya 17,000 oo askari buu soo diray taangida dagaalku soo diray hub casri uu soo diray dadka qaarkood xataa waxay qoraan in 2,000 oo ciidan oo askari oo Kubaanay ay ku dhinteen dagaalkii Soomaalida iyo Xabashida iyagoo Xabashida difaacay Jarmalka bari ayaa ka mid ahaa kuwii u soo hiiliyey ruushku markaa heshiisyada ruushka iyo Soomaaliya ay wada galeen waxaa ka mid ah inaanay labada dawladood midkoodna dawladda kale cadow u ah aan heshiis la geli karin taa macnaheedu waxa weeyaan ruushku Itoobiya heshiis lama geli karo waayo Itoobiya waa cadowga Soomaaliya Soomaaliyana Mareykanka heshiis lama geli karto waayo Mareykanku waa cadowga ruushka maadaama nin xoog weyn ahaa waxa isagu ma ixtiraamin Itoobiya la gali heshiis taasi markaa Maxamed Siyaad Barre waxa uu muujiyay daniisu ku arkay Maxamed Siyaad Barre waxa uu muujiyay ruushku inuu khiyaameeyay taas horta waxay keentay in xuduudka ruushka iyo Maxamed Siyaad Barre uu xumaado Maxamed Siyaad Barre wuxuu isku dayay inuu ka raadsaday isbahaysi reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka wuu hadlay madaxweynihii Mareykanka xilligaas Maxamed Siyaad Barre ila soo hadlay wuxuu weydiistay inaan taageero huba siiyo si Itoobiya ugu duulo aniguna waa ka diiday waxay ku muujinaysaa markaa reer galbeedka iyo reer barigu marka la isku wada tago ilaalinta Itoobiya ilaalinayaan waa ka midaysan yihiin Mareykanku umuu arkin inay Itoobiya xulafadiisii ka baxday saas daraadeed inuu Soomaaliya taageerto Itoobiya loo burburiyo laakiin wuxuu arkay in hadda inay kala yara caroodeen laakiin ay isu maqan yihiin oo waxna waa u asal waxna waa u furo marka farci baa la isku yara garan waay mooyaan jiritaankii asalka ah waa halkiis marka Maxamed Siyaad Barre labadii dawladood ee waaweynaas ee dunida marka ka talinay sidaas uu ku waayay dadkiisii gudahana waa kan sanduleeyay marka walaalo xilliyadaas waxay ku gabagaboobeen 1991kii kacaankii Maxamed Siyaad Barre wuu burburay 21 sanadood oo ayaa halkaas ku dhamaaday wixii xigayna waxay dagaal sokeeyay waxay ahaayeen burbur bulsho waxay ahaayeen qabqablayaal ay gaaladu ku adeegato waxay ahaayeen silaca iyo rafaadka aad u jeedo aad iyo aad dagaalkii marka Siyaad Barre uu ku jabay maxaa xigay waxaa xigay Soomaalidu dimuqraadiyad waa soo tijaabisay 1960kii waa shaqeyn weeyday scientific socialism bay soo tijaabisay waa shaqeyn weeyday waa ku istilay waa ka marka dambe hadraawi ma sidii caanka ahayd dabahuwan markay danimeeday tiri maxaan tala meel ka day markay dani maaha tiri weydii qof meel ka day markay dani maaha tiri ku laabtay halkan ka day markay dani maaha tiri ka sii day meel la day buu hadraawi wuxuu sawirayaa paradoxkaas ah in Soomaalidu maaragtay ay maxaa la yiraahdaa ku wareereen tii ay galeen tiiha hadraawi runtii uu ka digaayo oo rasmi ah baa la galay marka mashruucan dhihi karna ina kala gura ay horta Soomaalidu galeen waa gartay maxaa la yiraahdaa ra'iisul wasaare Itoobiya Soomaaliya kale Mala Zanaawi ayaa 1996kii ayaa wuxuu yiri annagu waxaanu rabnaa shacab Soomaaliyeed laakiin ma rabna dawlad Soomaaliyeed mana waxay ku muujinaysaa burburka Soomaaliya gudaha ka dhacay inaanu burbur Soomaaliya gudaheeda ka yimi intiisa badan aanu ahayn mid dibadda laga soo abaabay madaxweynihii isla xilligaas ninkii loo jiray Daniel Arap Moi Kenya isaguna mar Mareykanka tagay jaacad hadal uu ka jeediyay wuxuu yiri Itoobiya Kenya waxay doonayaan inuu dalka Soomaaliya ahaado dal leh dawlad taag daran oo iyagu maamuli karaan saasna waxaan u sameeynaynaa buu dhahay waxaan ka cabsi qabnaa inay Soomaaliya ka dhalato dawlad
dib u soo noolayn karta aragtidii Soomaali weyn oo Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Kenya labadoodaba khatar ku ah marka walaal waxay cajiibka waxa kamid ah xogeeyay arrimaha dibadda ee Mareykanka gabadhii la dhihi jiray Jandaya Fraser ayaa 2006 Afrika arrimaha Afrika markay soo galeen xabashidu ay Soomaaliya qabsadeen 2006 ayaa waxay tiri marna suurtagal maaha Soomaalidu inay waxa laga weydiiyay si aragtan Ethiopia inay Soomaaliya qabsato waxay ku jawaabtay marna suurtagal maaha Soomaalidu xeebta Afrika ugu dheer inay haystaan Ethiopia dad ahaana ka badan dal ahaana ka badan ay xeeb la'aan ahaato macnaha waxaad arkaysaa markaa isku xirka ka dhaxeeya macnaha xaqiiqooyinka hadda maanta jira macnaha halkay ay asalkooda u laabanayaan dadaalkaasi markaa Ethiopia wax badan horta ka suurtagalay maanta aan wada hadlayno Soomaaliya 6-7 maamul goboleed ka samaysan waxyaabaha cajiibka waxa kamid ah 7 maamul goboleed 6 maamul goboleed oo Soomaaliya ka samaysan maamul goboleed kasta Ethiopia xuduud buu leeyahay waxa cajiiba 7-6 maamul goboleed oo Soomaaliya ka dhisan intooduba waxay leeyihiin marin biyo dhinaca badda oo meesha Ethiopia ay u socoto ee hadafkeedu marka 6 maamul goboleed maamul waliba xuduudiisa waxay ka soo bilaabanaysaa xuduudda Ethiopia kadibna xeebta dabada la galaya ay la galayso waxaan fiiriyay maalin dhexe wasiirka arrimaha dibadda hore Ethiopia ninkii la oran jiray Sue Masvin iyo nin kale oo maxaa la yiraahdaa waaxda arrimaha Afrika wasaaradda ka ahaan jiray oo la oran jiray isagana waxa dhooy jiray Abdeta Diripsa iyo Sue Masvin baa warqad wada qoray 2018 waxay u bixiyeen the practicalities of living with failed states wax sida loola noolaado dawladaha fashil waxyaabaha cajiibka ay ku qoreen waxa kamid ah waxay sidee ay ku faanayaan u qorayaan sidii dawladda Ethiopia ay gudaha Soomaaliya fadqalalo iyo fawdo uga wadi jirtay buffer zone ay uga sameyn jirtay si aanay Soomaaliya maartay aanay uba soo kicin in gudaheeda la walaaqo ay ugu dadaali jireen waxa la yiraahdaa si adiga aad horumar u gaarto waa inuu diriskaaga cul ku jira Mareykanka Mexico tusaale loo soo qaataa Rwanda markii waa dhisatay la Congo loo soo qaataa Ethiopia Soomaaliya soo qaadaa marka wasiirka arrimaha dibadda waay waliba wasiirka arrimaha dibadda muddo dheer Ethiopia joogay waay xilligii Ethiopia Soomaaliya inta ugu badan soo weerarisay joogay galay waa ninkaasi iyo ninkan kale la qoray waxay leeyihiin gudaha Soomaaliya qalalaas fawda siyaasadeed kolba qoladaan anagu aragnay inay dantaydu ku jirtaan kurso yara qaadi jirnay maamul goboleed ha ahaada ashqaas ha ahaadaan jabhado hubaysan ha ahaadaan dadkaas ama maamul goboleedkaas ama jabhadahaasina markasta waxay fulinayaan danaha Ethiopia ay leedahay markaan dantayda Ethiopia ku gaarno waxaan kala baxaynaa bottomka markaan dantayda u baahno waa bush gareynayna saasay maxaa la yiraahdaa ay sheegayaan in markaa marar badan gudaha Soomaaliya ciidamada Ethiopia loo diray si dan Ethiopia leedahay oo markaa taagan ay u xaqiijiyaan arintaas waxa ka marakacay Cabdullaahi Yuusuf Axmed waa nin Soomaalidu ay aad u yaqaanaan isaga iyo Ethiopia sida isu ahaan jireen waa gartay muxuu yiri markii uu xukunka ka tagay ayaa buug buu qoray la yiraahdo halgan iyo hagardaam 2012 wuxuu kaga hadlay siyaasadaha arrimaha dibadda ee Ethiopia iyo Kenya ee ku aadan Soomaaliya Cabdullaahi wuxuu leeyahay Ethiopia waxay danaynaysaa inay Soomaaliya ka dhisto maamulo yar yar oo aanay midnimadoodu Ethiopia waxba yeeli karin sidoo kalena xataa haddii ay midoobaan aan riyadii Soomaali weyn soo celin karin riyada Soomaali weyn oo Ethiopia laf dhunta kaga taagan ay aragto marka wuxuu Ethiopia waxay markasta cabsi ka qabtaa inay Soomaaliya midowdo dawlad noqoto kadibna ay danaheeda ay ka tashan karto wuxuu leeyahay Kenya waa la mid wuxuu leeyahay sida Ethiopia oo kale Kenyana markasta waxay ka warwar qabtaa inay Soomaaliya dawlad xoog leh ka dhalato marka wuxuu leeyahay Kenya iyadu inta waxa u dheer dhaqaale ahaan bay uga faa'iideysataa buu leeyahay burburka gudaha Soomaaliya ee hay'adahan iyo waxan Soomaaliya mashaariic ay ku qaatay wuxuu meesha ay degan yihiin iyada waa natiijooyinkii soo baxay walaal waxa kamid ah maanta Soomaaliya 7 maamul goboleed 8 wax saasaba ayaa ka jira oo ina kala guradaas ay keentay Soomaaliland baa jirta Khatum baa jirta SSC Khatum Puntland baa jirta Galmudug على هيرشابيل كونفور galbeed Jubbaland waxaa cajiibka qosol kale waxa kamid ah hadda waxa laga fikiriyaa sidii loo sameeyay lahaa Banaadir state waxa laga fikiriyaa sidii loo sameeyay lahaa Maakhir state sidii loo sameeyay lahaa Awdal state sidii loo sameeyay lahaa Hiiraan state sidii loo sameeyay lahaa Gede state macnaha kuwa xataa jira sidii loo sii kala furfuri lahaa ayaa runtii laga shaqeeyay taasina marka waxay muujinaysaa kala diristii qarannimada Soomaaliya inay tahay waxaan arkay sawirka gaadhay meel kamida maxaa la yiraahdaa dalka Soomaaliya maraayo ay ku dhagan yihiin taariikh 4 taariikh ku dhagan gaadhayaas waxa ku dhagan taariikhda Khatum waxa ku dhagan Galmudug waxa ku dhagan Puntland waxa ku dhagan Soomaaliland hal gaadhayo meel dalka Soomaaliya maraayo la sawiray way practical wuxuu sawirkaasi xaqiiqo wuxuu ku tusaaya macnaha ina kala gurada Soomaaliya iyo dhulkeeda ee ka dhacday maanta aan wada hadlayno dekada Berbera iyo Boosaaso Imaaraadka xukuma dekada Xamar Turkiga xukuma Kismaayo iyo Garacad sida la foosay Imaaraadka ayaa gacanta ku haya la leeyahay hubiyo
waxaa lagu wareejiyaa laleeyahay turkida waxaa laleeyahay baraawe waxaa lagu wareejiyey kuwait sidaas ay sheegayaan xaaladda bulshada sidaasadeed iyo amni iyo dalku macnaha waa kala daadsan yihiin duulaanada kala duwan ayaa Soomaaliya maanta maaragtay ayaa dalkeeda ka socda waxaa laga yaabaa duulaanada qaarkood waa qaar diin ku salaysan qaarkood waa qaar dhaqaale doon ku salaysan qaarkood waa qaar gumaysi doon iyo in adiga lagu cabiidsado maaragtay ku salaysan waxyaabahaas oo dhan baa walaal hadda maanta wada hadalna dalka ka socda isbahaysiga Mareykanka oo reer galbeedka dabcan isagu ugu xoog badan maxaa la yiraahdaa Gulf Stateska dawladaha khaliijka oo hadda imaaraadku maaragtay u muuqdo ingiriiska sheeg Israa'iil ku dar waxaas oo hadda waxa la leeyahay hadafkooda ugu weyn waxa weeye inay badda cas xabashada ku wareejiyaan marka badda cas inay maaragtay ay noqoto meel xaggan xabashada ka waardiyeeyaan xaggaas shishana ay yuhuud ay ka soo waardiyeyso waxaad xusuustaa Soomaaliya waxa lagu daray waxa yiraahdaan chapter 7 cutubka 7 maxaa la qaramada midoobay waa cutub uu nuxurkiisu yahay Soomaalidu isma maamuli karaan waa in la maamulo nuxurka guud ee chapter 7 ku intaas iyadoo marka cutubka la fulinayo xirada xalan ee xamar ku taal waxaa fadhiyan niman la yiraahdo C6+ Soomaaliduna beesha lixaad u bixiyeen waa safaaradda Mareykanka waa safaaradda Ingiriiska waa safaaradda Faransiiska waa ergeyga qaramada midoobay waa ergeyga midowga Yurub waa ergeyga midowga Afrika iyo dawladaha kale soo raacraca kolba dan laga leeyahay Turkiga kuwan ku soo dar maaragtay Imaaraadka Itoobiya kuwaasa iyaguna kolba ee maxaa la yiraahdaa siyaasadooda dhaqaalahooda arrimahooda ka dhaxarka Soomaaliya Soomaali guud markaan ku soo laaban marka waxaa la yiraahdaa baddaan haysano buuraheenan haysano banaanadaan haysano webiyadaan haysano meel kasta khayraad baa ceegaan xaqiiqa ahaan Soomaalidu waxay maxaa la yiraahdaa uu Ilaahay siiyey khayraad ballaaran oo ay ku noolaan karaan waxaa la dhihi karaa Soomaalidu waxay xaq u leedahay inay ku noolaato nolol aanay cidina kula tartamin marka la fiiriyo khayraadka dhulkooda yaal laakiin Faysal waxa la isweydiinaya yaa haddaba inoo diidan inaynu noloshaas aynu ku noolaano waa garta aniga jawaabteedu waxay tahay jawaabtu waa in laga raadiyo sooyaalka taariikheed ee horteena yaala oo intaasoo sana soo socday abwan qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay dabcan sida hadda Hadraawi uu gabaygiisu ku cabirayay tiihii la galay mid la eg ayaa hadda ama ka balaarabo ayaa ilaa hadda socda dhalinyarada muddo dheer kusoo dhex jiray suugaanta wax ka arkayay waxa soconaya ayaad ka mid ahayd Muqdisho Hargeysa ugu dambeyn Jilib ayaa timid Soomaalida hadda aan ka soo sheekeynaynay ee dadnimada lahaa ee in la gumaysto ka jeclaa inay dhulka ka hoos maraan dadkaas Jilib ma ka heshay waa runtii su'aal weeye walaal waxaan aaminsanahay horta dadka Soomaaliyeed iyo nidaamka siyaasiga laba wax oo kala duwan waay dadka Soomaaliyeed waa dad iska muslimiin masaakiina wax badan oo kamid sabool yihiin khayraadka ballaaran ee dhulkooda yaala aan laga faa'iideysanin tabar ay xataa kaga faa'iideystaan badankooda fahamka aan lahayn waxyaaba cajiibka ah in xusuusta waxaa kamid ah niman mar daraasad ka sameeyey Soomaalida iyo xeebaheeda dunida ay soo marmareen xeebaha waxyaaba cajiibka ay qoreen waxaa kamid ah waxay yiraahdeen xeebta Soomaaliya waxaan ku aragnay kalluun intuu cid cunto waayde u dhintay bay dhaheen ayuu u dhintay wuu gaboobay maana marka xeebaheenii kalluunka isagoo gaboobay buu iska dhimanahay waxaa laga yaabaa qof Soomaaliya dul taagan inuu gaajoonayo beesha caalamka uu ka rajaynayo inay u keenaan qaban intaas oo projecto oo looga faa'iideysan karo waxa marka inaga dawaqay horta waa siyaasadda way nimankii hadda aan qayb ka mid ah sheegnay baa siyaasadii ay gacanta u gashay iyagii baa siyaasadii haysta iyagina de nimanka aan sheegaynay ugu adeegayaan qofkana niyo meel xanuuna madaxa ugu xun haddii qofku madaxu uu xanuuno macnaha mijo waxba badan ma tara gacantana hadday ku xanuunto waa lagaa goyn karaa dhimala waa iska noolaan kartaa adduunka hadduu ku xanuuno waa lagaa goyn karaa waa la iska sii noolaan karaa laakiin meesha laynaga galay madaxa wey ilaa madaxa la hagaajiyo marka oo madaxu uu noqdo madaxaan inagu leenahay oo inaga inagu rakiban oo waxa inagu danteena u aragna ku fikiraay oo waxa inagu danteena u aragna maartay raadinay waxa inaga cadawgeen uu rabana diidi karo oo maya dhihi kara ilaa fursad noocaas ay abuuranto horta Soomaalidu meesha ay taala way oolaysaa nidaamyada marka aad soo sheegtay Hargeysa ka dhisan xamar ka dhisan Kismaayo ka dhisan Garowe ka dhisan Baydhabo ka dhisan waa nidaamyo loogu talagalay inaynu sidan ahaano statuskoogu uu sidan ahaa dadkana sii hordisiyaan ay dadka sii hordisiyaan inagu marka halkan aan joogno waxaan ka raadinaa waxa weeye inaan dhisno nidaam dawladeed oo madaxiisa inagu aan leenahay oo aqligiisa inagu leenahay oo fikirkiisa inagu leenahay oo waxaan inagu xal u aragna uu yahay waxaan inagu xal u aragno oo waxaan isku xukunaa uu yahay diinteena iyo dhaqankeena iyo dadnimadeena waxa dadkeena u xuni ayna la xun yihiin waxa dadkeena ihaanada ku ah inaga agteena ihaana ka yihiin waxa dadkeena u fiican iyo horumarkiisa iyo dawladnimadooda iyo diintooda iyo dhaqankooda uu yahay waxaan ka shaqeynaa tamarka halkan loo joogo loo dagaalamayo loo dhimanayo dhiigga loo daadinayo horta taas wey waxaan rajaynayaa waa la gaari doonaa laakiin waxay u baahan tahay in pricekeeda iyo qiimaheeda la bixiyo
waa gartay ma aragtay marka dadkaas xaqiiq waa intay la eg tahay rabitaanka ay u qabaan marka in ay xaqiijiyaan hanka intaas la eg oo ah in lagu soo celiyo 5 Soomaali oo kala tagtay meel isugu keenay waxa la fiirin karaa bal ubadka yaryar ee barbaaraya maanta Soomaalida fiiri bal intaad fagaareyaasha ama jilibkii ku yaala ama magaalooyinka kala jooga aad fiiriso bal caruurta yaryar maxaa la yiraahdaa waxay ka fikirayaan idaacadiin waan dhageystaa caruurta la wareysanayo maxaad rajaynaysaa maxaad doonaysaa mustaqbalka markaad maxaa la yiraahdaa aad weynaata inaad noqoto maxaa niyadaada ku weyn ma garat wuxuu ka hadlayaa waxyaabo cajiib ah waxaan rabaa inaan herar xoreeyo waxaan rabaa inaan qudus maxaa la yiraahdaa xoreeyo waxaan rabaa maxaa la yiraahdaa inaan raayada tawxiidka meel heblaaye ka taago waxaan doonaya humum in la gaaray in kala dood kala waa qadar allana way ku xiran tahay laakiin ilmahaasi wuxuu ka fikirayo wuxuu ku barbaaraya waxaad fiirisaa marka kuwa magaalooyinka jooga waxaad fiirisaa 15 jirka 20 jirka bal magaalada jooga fiiri TikTok ka hadlay bal wuxuu ka hadlay bal qabyaaladu ka hadlay bal dacayadu dadku caayayo bal fiiri macnaha labada hankan tuu leeyahay halkaas isu fiiri waxay cajiib wax ka qof kasto maanta Soomaaliya jooga oo maxaa la yiraahdaa magaalooyinkaas ku weynaado oo dhalinyaro ah qof kasta haddaan idhaahdo waxa laga yaabaa inay gafigu noqoto laakiin intooda badan wuxuu raadinayaa fursadii uu dalka kaga bixi lahaa anyway uu maartay Soomaaliya kaga tagi karo oo maartay uu galbeedka ku aadi karo uu dalkan iskaga tagi karo ayuu ka fikiraya laakiin halkan waxaa jooga dhalinyaro yaryar caruur ah oo doonaya ama inay dhulka guudkiisa iyagoo sharaf la ku noolaadaan ama dhulka maxaa la yiraahdaa hoostiisa ay galaan sociologically marka waxaa laga fahmi karaa labada nidaam ee soo saaray dadkan labadan jiil labada nidaam ee soo saaray curriculumka soo saaray aragtida siyaasiga ah ee soo saartay ayaa markaa kaaga muuqanaya qisa yaroo cajiib ah jirtay oo aan soo xasuustay jiilka ku nool wilaayadka islaamiga wiil yar qof baa iga sheekeeyay oo safar ahaa gaadiid wilaayadka dhex marayay oo dhalinyaro isaga da'diisa saaran yihiin ayaa halkan uu ka raacay gaariga markuu raacay kor ayuu qabsaday marka meel dhex la marayo wuxuu ka yimid fasax ciidanka wuxuu u socday deegaankiisa waa la soo fasaxay markuu meel dhex marayo ayay dadkii rakaabkii degeen maqaayad baa la galay waa la cunteeyey isaga uu soo cunteeyey goobtiisa ayuu ku soo noqday maqaayadii marka qof waliba markuu meesha tago inuu lacagta iska bixiyo u taga ayaa waxaa lagu yiri wiilkaas ayaa idinka bixiyo kor gaariga ka saaran aragtida ay marka hore ka haysteen waxay ahayd in wiilka daruuf ama culeys haysta uu qaybta kore u saaran yahay kadib marka la soo degay wiilkii ayaa wuxuu noqday qiso ilaa gaariga xamar uu ka galo isaga meel dhexe ayuu ku degay deegaankiisii ugu degay ugu danaystay wiilal asaagiisa ah ayaa gaariga saarnaa oo wiilka looga sheekeynayay hanka iyo caqliga ku jiray iyo siday u fikirayeen wiilkan ummad ayuu difaacayay thuquurta muslimiinta ayuu ka yimid lacagta la soo siiyo la yiri guriga ku tag waxaa laga yaabaa inay tahay wax iska kooban inuu naftiisa ka baqiilay saas daraadda marka jiilkan sidaas ah waxaa la ii sheegay qof gaarigiisana u sheegay ilaa gaariga Muqdisho uu ka galay qiso saameyn badan oo darsi ah inuu meesha uga tagay waxay sheegaysaa marka qofkaas mas'uuliyadda saaran way qofka naftiisiiba huraya soo dadkan u badbaadiyo aad iyo aad wixii ugu qiimaha badnaa uu haystay naftiisa meesha uu sii socdaan xabad baa ka dhacaysa malab la isku siin maayo waxaan Faysal xusuustaa sida ay macnaha sheekadu wada ahayd ma hayo laakiin nin odayax baa wuxuu iiga sheekeeyay xilli dhexe nin ayaa wuxuu igu yiri gabar buu guursaday waxa laga yaabaa sheekadu inaanay sidii hadda aanan u wadayn laakiin nuxurka guudun baan ayaan uga jeedaa gabar buu guursaday qurbaha iyo meelaha inuu kaxeeyaan filaya marka inuu rabay waxay tageen marka magaalada Herar waa gabadhii iyo wiilka wada socda Herar bay tageen marka masaajidkii Herar oo kiniisad laga dhigay ay arkeen buu igu yiri marka waxa la yiri gabadhii baa waxay ninkii ku tiri hebelow maaragtay jeclaan lahaa wiilkii Herar xoreyn lahaa inaan dhalo waxa la yiri ninkii walaalka ahaa hadalkaasi saameyn waxa laga yaabaa waxa nin Soomaaliya Yurub iska jooga ma iska danaysta shaqadiisa iska waxa laga yaabaa inaanu wax maartay waligiiba inaanay niyadiisa Herar hal xoreyn hatta inaanay ku soo dhicin waa suurtagal hatta Herar inay maqantay inaanu xusuusnayn baa laga yaabaa safaruun buu sii socday Soomaalidu waa tan hadii sababiyo meelaha safaaradaha ka dhoofaan ay meelaha ka xareysan safaarada hadalkaasi ninkii dareen ayuu geliyay waxa la yiri Ilaahay wuxuu qadaray ninka horta jihaadku ayuu qayb ka noqday gabadhiina jihaadku keenay ilaahayna wiil buu ku arsaaqay waxa la yiri hadda wilaayadku jooga marka la salaamo wuxuu leeyahay adeer wiilkii Herar xoreyn lahaa aniga waay uu isu yaqaan magacaas isu yaqaan wiilkii Herar xoreyn aniga waay waxay tilmaamay tarbiyada tilmaamaysaa markaas waxaan rajaynayaa ilaahay inuu suurta geliyo ay guuleysto insha Allah taala aad iyo aad abwan waa soo gabagabeynaa waraysigeena guntii iyo gunaanadkii aan soo gaarnay maxaa ku soo gabagabeyn lahayd runtii walaal Faysalow runtii waa idin mahad celinahay jazakallahu khayr waxay ii tahay runtii farxad bay ii tahay warbaahintu meelaha ugu waaweyn ee laga tawjiihiyo weeye ummadda iyo waxa aan doonin runtiina
duruuftaa ku shaqaynaysaan iyo dadaalka aad bixinaysaan runtii waxay muujinaysaa idinka laftiina waxaa horaysaan macnaha inta uu leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay waa waxa ugu yar laakiin runtii waxa ugu yar idinku markaa gudaha joogtaan waa idinla yaryahay laakiin anagu maadaamanu bannaanka joogno oo wax soo saarkiina runtii aanu quudanno runtii aad iyo aad buu qiimo badan yahay waa idin mahad celinaya waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in dadaalkaas uu ilaahay uu noqdo kii midha dhaliya ee guulaysta marar kale iyo meelo kalena insha allahu tacaala aan ku kulan aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa abwaan nageeye cali khaliif oo marti ku ahaa xalqadeennan barnaamijka Andalus podcast oo aan uga doodaynay Soomaaliya muxorba mise xor ma ahan xorriyaddii la qaatay 60kii ma dhalanteed bay ahayd mise mid dhaba ay ahayd waxaan filayaa in su'aashaas jawaabteeda aan idinkaga dhex bixi doono kadib marka aad heshaan macluumaadka iyo xogta aan xalqadan ku soo gudbinay dhegeystayaal kulanti dambe ayaa inoo balana iyo xalqo kale oo xiiso badan sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا مدى النقمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا مدى النقمة فيا أبناء أمتنا أعيدوا لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيدوا لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيدوا لفجرنا البسمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة